kusoo dhawaada barnaamijka Hindise qaybtan waxaa ku tartamaya ganacsiyada kala Low Compost oo matalayo Cabdiraxiin Faarax, Korea Company oo matalayo Maxamed Cabdulaahi, Biotech Fimas oo matalayo Cabdixamiid Mucallim, Cusub Animal oo matalayo Maan Suleymaan, Ejed Beauty oo ay matalayso Ani Maxamuud, Idda Dawr oo ay matalayso Iqlaas Maxamed. haddaba inta aanan bilaabin tartankan aan baranno guddiga garsoorka barnaamijka Hindise. waa Cabdixakiin Maxamed Ismaaciil waxaan ahay asaasaha iyo gudoomiyaha shirkadda Xadiid Industries Group. Xadiid mar bay ahayd fikrad, maantana waxay ka mid tahay shirkadaha ugu horeeya ama ugu weyn dhinaca birta wax soo saarka dalkeena. waxaan ka mid ahay garsoorayaasha Hindise. dhammaan tartamayaasha waxaan u rajaynayaa guul. magacaygu waa Dr. Cabdiraxmaan Xasan Yuusuf, waxaan ahay asaasaha Mira International Schools iyo Bulshakaab Clinic. hadda waxaan ahay madaxa waxbarashada Iris Hub iyo gudoomiyaha Cabdicaziz Youth Center. in ka badan 110 shirkadood baan 5 sano ugu dambeysay waxaan ka ahaa fikradahooda ganacsi garsoore iyo qiimeeye. magacaygu waa Dr. Idil Maxamed Cabdiraxmaan, waxaan ahay asaasaha iyo maamulka xarunta Kaafiya Center. waxay u istaagtay inay wax badan ka bedesho dhanka shaqo la'aanta magaalada iyo qoysaska Soomaaliyeed guud ahaan. waxaa jirto oraah dahabi ah oo leeyahay Robert Collin oo leh guushu waxay ka imaataa isku darka hoola yaryar iyo joogteentooda. magacayga waa Amira Aweys Abukar, waxaan ahaa milkiilaha Amira Lab and Pharma. waxaa kaloo ahay online coach dhanka nutrition-ka. markaa ahaa ardayga waxaa jiray riyooyin aan lahaa taasoo maanta miro dhashay. waxaa jirta oraah dahabi ah oo oranaysa guul walba waxa ay ka bilaabataa riyo, waxa ayna ku dhamaataa fulin. ka rumey riyadaada inta ay ruuxda kugu jirto, taa oo mar walba igu dhiirigelin jirtay ka rumeynta riyooyinkayga. magacaygu waxa waaye Maxamed Cabdulaahi, waxaa ka socdaa kambaniga Korea wuxuu isku dayaa inuu xaliyo problemka jiro oo carruurta tusaalaha markay waalidka weydiiyaan telefoonka iyo dhiib waalidku waxa uu asoonan ka fiirsanin badanaa waalidiintu u dhiibaan ayagoo isku daya inay ku mashquuliyaan, laakiin carruurtaas waxay isticmaaleen iyo waxay daawadeen lama ogo problem jiro waaye. anna marka waxaan rabnaa inaan xalin arrintaas oo waalidku awood u yeesho inuu dhihi karo hoo telefoonkayga isticmaal, waxaa isticmaashaa applicationka ladaha Korea. marka ilmaha wuxuu ka heli doonaa casharo, wuxuu ka heli doonaa kartoomo fiirsado, wuxuu ka heli doonaa games uu ciyaaro, wuxuu heli doonaa quiz laga qaado, leaderboard jiri doono, report waxaa jira waalidka isbuuc dhamaadkiisa uu heli doono, tartamo quraan la qaban doono, wax badanaa jira. marka waa platform dhammaystiran oo aan rabnaa carruurta inaan ku mashquulina waxna ay ka faa'iidaan. targetkan waxa waaye carruurta jirto 3 sano ilaa 7 sano kuwa xanaanooyinka dhigtaan si maskaxdooda ay u kobciyaan xirfadaha loo baahan yahay qarniga 12 ay bartaan si wadankooda iyo diintooda ay u anfacaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ahay teamka Korea. marka maanta waxaan soo jeedin doonaa Maxamed Cabdulaahi. okay, haddaan bilaabo next waxaan ka bilaabi doonaa ugu horeyn teamkeena iyo qaabka dhisanahay. waxaa ugu horeeya Maxamuud oo ah CEO-ga, waxaa jiro engineer Cabdiqaadir oo noo noqon doona technical advisor and CTO. anigoo Maxamed Cabdulaahi waxaan qaabilsanahay app development qayb iyo UI UX. Dr. Fadim waxay noqon doontaa ECD advisor, Habib iyo Adnan waxay noqon doonaan ECD specialist. next haddaan ka hadlo riski waa meel muhiim ah oo inaad ka fikirtid markaad sameynaysid business. anaga markaan ka fikirnay waxaa noo soo baxday ugu yaraan 3 inay jiri karto. waxaa ugu horeeya waxa waaye inuu macnaha dib dhici karo Soomaalina la qabsadaan online education. caqabad imaan karta waaye, waa possible waaye. sidee uga hortagayna waxaan sameynaynaa marketing iyo wacyigelin si aan u dejino adoptionkaas inuu si dhaqsi leh u dhaco. midda labaad waxa waaye budgetkeena inuu naga dhammaado. taasna waxaan ku xalin karnaa inaan noqono dad strict ah, waxyaabaha aan ku bixinayna noqdaan waxyaaba muhiim ah markaas aan laga maarmi karin. sidoo kalena helna xataa investors oo naga caawiya wax qarashaadka u baahno oo soo budget nooga dhammaan. midda saddexaad waxa waaye internet midiisa possibilities waa yaryahay, laakiin hadduu dhaco xataa waxaa uga hortagayna waxa waa anaga content-geena si offline ah loola degi karaa oo loo fiirsan karaa. marka haddii khadka xataa cilad ay ku yimaado wax cilad insha Allah ma dhici doonto. next
haddaa u imaado sustainability-ga qeybahan kala duwan waxaa ugu horeeya local community-ga waxay noqon doonaa waalidiinta iyo ECDs-ka oo macnaha tusaale xanaanooyinka oo kale iyo community centers-ka oo bulshada ay leedahay markaas shaqaalahan waxay noqon doonaan dad oo ECD ku takhasusay developers designers marketers iyo dad ku takhasusay saleska si waxaa loo suuq geeyo midda saddexaad waxa waa carruurta maxay ka faa'iidayaan iyo social value muxuu noqon doonaa carruurta inay ku bartaan akhriska iyo tirinta sidoo kale xataa ay kaga fogaadaan teknolojiyada dhinaceeda xun oo ay si fiican uga faa'iidaystaan haddaa u imaado end user-ka waa tii hadda la mid tahay oo wuxuu ka faa'iidaa games u ciyaaraa wax maskaxiisa kobcinayo cunuga ka heli doonaa sidoo kale wuxuu ka helaa qur-aanka inuu barto sidoo haddaa u imaado social impact si guud ahaan wuxuu noqon doonaa in la soo saaro dad lifelong learners ah tusaale ahaan inay wax baran karaan intay nool yihiin oo jecel yihiin inay wax bartaan mar kasto sidoo sababtoo waxa waaye markay yaraayeenaa lasoo baray macnaha midda labaad waxa waaye inaan ka fogeyna carruurta autism-ka waa waxyaaba ugu challenge-ka u badan waaye badanaa xataa wuxuu ku dhacaa dadka dibadaha jooga marka waxaa keena waxa waaye cunugiina si gooni meel u fadhiyo mobile iska isticmaala technology iska isticmaala uu qof uusan la hadlayn interactivity san jirin anaga waxyaabaha xalina ka mid tahay oo inaga faa'iidaan bulshada insha allah si guud ahaan haddaa soo koobo faa'iidooyinkaas oo dhan insha allah kuwa ka badan baa laga heli doonaa next anaga marka see u joogtaynaynaa financial ahaan maxaa see ku soconaynaa waxaan ku soconaynaa waxa waaye waxaa insha allah samayn doonaa revenue-gaasa marka waxaa rabnaa inaa ku kabno waxyaabaha dheeraadka oo markaas aan u baahno sidoo kale waxaa qiyaasana insha allahu tacaala haddii 500 oo qof ay isticmaasho application-keena oo family oo mid kasta family-gaas aan ka qaadayna 14.9 iyo 500 oo arday oo individual blank ku jiro oo ayagana aan ka qaadayn 3.99 inaa bil walba aan heli doono insha allahu tacaala almost 9000 sanad walbana ilaa 113,000 insha allah marka haddaa ku guuleysano maanta insha allahu tacaala kaalinta koowaad yes budgetkeena weli waxaa ka maqan laakiin waxaan rabnaa insha allahu tacaala ku kabno qaabab kale ama investment aan raadina dheeraad ah ama deen aan soo qaadan insha allah next qaybaan kala duwan uu leeyahay application-kaas aan soo sheegay prototype nuu jiri doonaa waana diyaar insha allah next anaga shan waxaa ugu muhiimsan waxyaabaha oo na saacidi doona insha allahu tacaala application-keena skillna ku sameyna saleska development-ga sidoo kalena insha allahu tacaala content-ga soo gelinayna sababtoo content-ga asaasi waaye haddaa content uusan ku jira application-ka wax badan uu qabanaya ma jiraan so content-ga waxyaabaha ugu muhiimsan waa application-keena insha allahu tacaala laga heli doono next time management-ga anaga waxaa rabnaa insha allahu tacaala si u dhaqsiyaa badan hadda abril lagu jiraa may insha allahu tacaala si u dhaqsiyaa badan inaan soo saarno version-ka beta inaan soo saarno oo dadka isticmaali karaan si aan feedback dhaqso uga helno oo midka rasmiga soo saarno insha allah next waxaa rabaa inaan kusoo gabagabay quote oo u dhahay Louis oo ahaa carruurtu waxay xaq u leeyihiin inay ogaadaan inay ka fikiri karaan inay adduunka saameyn uga tagaan anagana waxyaabaha aan ka shaqeynayna waxa waaye cunugaas ilmahaas yar isagoo yarbo inaan middaas u ogolaano oo xataa ma ku weynaado insha allah taala saameyn weyn uga tago bulshadiisa ugu dambeyntii marka next haddaan carruurta aysan helin qof la taliyo waxaa dhacdo inay ku dhacaan addiction waxaan rabnaa prototype-ka inaan la wadaagtid anaga prototype-ka waxaa u sameynay mobile-ka diyaar waaye tablet-kana diyaar waaye so labadaba waan tusi karnaa haddaan ku bilaabo tablet-ka marka hore waxaa arki doonaa qofkan kusoo gal wejigan hore oo application-ka wuxuu qabanaa uu ku fahmi doono haddii uu kasii gudbo waxaa arki doonaa sidoo kale application-ka waxyaabaha uu sari doono oo ka saacidayo kale weli waxaan waa shaashadahan soo dhaweynta waa weli hal mar qofka arki doonaa haddii waxaan aan dhahan skip aan kasii gudubno waxaa u tegaynaa shaashada koowaad application-ku lahaan doono laakiin login aan ka horeyn doono login hadda ku sameyno saanu noqon doonaa qaybahan kala duwan lahaan doonaa tusaale ahaan haddaad taabno courses oo kale laba noocaa jiri doono kuwa ka horeeya carruurta intaysan xanaanada tegin iyo kuwa xanaanada khuseeya so labadan qaybood way jiri doonaan sidoo kale waxaa jiri doono games way jiri doonaan waxaa kaloo jiro live-ka oo kale markaa ku dhufan waxaa arkaynaa maalmaha aan qorsheenay oo live ku dhici doonto tusaale waxaa ujeednaa 27 oo ku beegan arbacada oo kale inay jiri doonto live ku saabsan biology-gan waa maada ahaan ciwaan kore waaye laakiin hadda aniga wax dhow waxay noqon doonaa maadooyinka ay qaadanayaan carruurta insha allah hadda laakiin development-a ku socdo waxaa ku xiranay 3 pricing-ka ku xiran shaashada pricing-ka oo qofka arki doona
saddexdaa wax ka badan oo idin muuqda ma jiraan mise saddexdaa keliya Haa, kalaraduna ma kalarada kuwa hoose bay match garaynayaan yes sababtoo ah hadda aniga applicationkeena wax lama gadaayo waa service waa qofku fiirsanaa so saddexdan caqabada ugu weyn lacagta dhinaceeda iyo internetkaas oo qofka isticmaalayo isugu fiirsado iyo sidoo kale dadkii isticmaal lahaa inay fahmaan micro applicationkan saddexdoodana qaabka waxaan leeyahay waa kuwan aawo inaad wacyigelintaas iyo inaan ka fikirno micro qarshaadka meesha ku bixinayno oo strict aan noqono haddii nagu dhacaan xataa investors inaan raadsano iyo midda ugu dambeysa internetka oo aan sameynay offline sabab casharada lagu heli doono insha allah mahadsantahay بسم الله financial stability and sustainability tagad Amar next haye tan maxaad 500 baad iibinaysaan 500 macnaha aniga balaniskan way kala duwan yihiin mid waxaa jira individual iyo mid family midka familyga pricekiisa waxa waaye bil walba 14.9 waaye midka individualkan 3.9 marka haddii aan helno almost 500 oo family oo mid kasta aan ka qaadayno 14.9 iyo individualka oo asan aan helno 500 oo arday oo ayagan individual isticmaalayaan oo mid kasta aan ka qaadan 3.9 almost bil walba waxay noqonay 9000 sanad walba waxay noqonay family marka trace waxa diinta sama sewa ma furanta qof kasta iyo intuu ka bixi karo waa qof waxa laga yaabaa inuu balaanka oo family inuu u fiican yahay kaas waa aadi karaa marka 14.9 marka bishi waxayna soo gelisay 9490 haddii labadaas 500 hadda hel almost 9000 waay haddii intaasina soo gelido qarashka ma xusta qarashka oo ina ku baxaya expensiga monthlyga waxa waaye saada aniga estimate gareynay 850 dollar yeah bil walba kaas ka bixin kartaan taas okay maxamed waxaa rabaa inaan ku weydiiyo ilmaha markii xanaanada intaan la gaarin ama xilliyada xanaanada ama goobaha waxbarashada waxay ka bartaan yani communicationka inay dad la kulmaan isticmaalka application oo yani applicationkan inay ilmaha wax ka bartaan caqabad ma ku noqonaya hadhow see dadka ula macaamili lahaayeen see dadka usoo dhexgali lahaayeen waxyaabahaas oo kale ma ka fikirteen su-aal muhiim waaye aniga applicationka wuxuu isticmaalayo ilmaha macnaha aniga meel gooni mala fadhiisanayo oo weligiis kan lama isticmaalayo xanaanu aadi doonaa aniga waxaa xalin waxa waaye baartiga ku saabsan ama kuwa xaafadda joogay inuu ku mashquulin teleefon dheeraade oo mashquulitaanka teleefonka waxaa ku bedelnay midka anigaa leenahay laakiin xanaanu aadi doonaa keena bism ku koobnaanahay so social interactivity muhiim waaye weli wuu jiri doonaa technology shirkadu waxay soo bandhigaysaa software cusub oo la magac baxay virtual identification management system mustaqbalka waxaan rabnaa inaan revolution ku sameyno ID cardka caadiga ah ee la wato inaan u bedelno qaab digital ah si aan u dhigno more secure less costly more effective waxaan rabnaa inaan gaarsiino dhammaan xarumaha looga baahan yahay ID card oo virtual magacaygu waa cabdixamiid macalin waxaa ka socdaa Byteso Tech waxaan rabaa hal mar intaan baasha u horgelin waxaan rabaa inaan sharaxo Byteso waxaan dareemaa waxaan Soomaali ereygan waa erey English ah Byteso inaan dhahno anaga badankeen Byteso waxa waaye computerka markuu wax cabirayo ama xaraf cabirayo wuxuu ku cabiraa bitkan wuxuu noqon karaa 1 ama 0 sideed markii la isku 8 xabo oo bitska ah waxa la yiraahdaa byte SO waxaa ka badnaa Soomaali hore u soco walaal next teamka ka koobanahay oo shirkadda ay ka kooban tahay waa aniga Cabdixamiid ah co-founder ah Maxamed oo isagana co-founder ah oo CTO ah iyo Xamdi oo Chief Financial Officer ah waxaa mentor noo ah ama financial advisor noo ah Ustaad Maxamed Muuse oo director ka ah Simat iLab next hore u soco waxaa sameynay risk analysis waxaa anaga maadaama nahay
start up oo technology ah waxyaabo badanaa riski nagu noqon karo shanta ugu muhiimsanaa soo qaadanay shanta ugu muhiimsan overall-kooda impactiga saameynta ay nagu lahaan karaan iyo probability-ga ama likelihood-ka ay ku dhici karaan midda koowaad waa daatada serverkeeda in la hagareeyo daatada inay crash garowdo iyo serverka inuu dansanaado saacada la damiya serverada adduunka iyo saleska nagu yaraada waxaa jira hal impact kale oo na saameyn karta oo ah in internetka la waayo sida asbuuc dhacday hadda kahor oo kale asbuucna in la waayo internetna la waayo QR code scannerska ma u baahna internet ma u baahna laakiin data in laga soo akhriyo xogta laga soo akhriyo database-ka waxay u baahan tahay internet ayadana xal waxaa u keenay asbuuc walba waxaa sameynaynaa maxaa ku dhahaa waxaa sameynaynaa backup marka haddii internetka uu baxo dhammaan clientigana waxaa u geenaynaa hard drive ay ku jirto xogtoodii waxaan u geenaynaa temporary application oo QR code marka la soo akhriyo xogta ka soo akhrin karo maxaa ku dhahaa hard drive-ka next hor u soco sustainability-ga sidee community-ga anaga noo caawin karaan ama community-ga maxaa faa'iido u haynaa oo ay nagu caawiyaan qodobka koowaad waxaa waaye community-ga localka ama local Soomaaliya community waxay nagu qabaan waxaa waaye 90% shaqaalaheena waxaa ka dhigaynaa Soomaali tan ama qantaankaas waxaa rabnaa inaan u adeegsano advanced technology lacala hadday imaado in lala dirgareeyo hacking iyo waxaas qodobada ugu muhiimsan haddaa taabto waxaa rabaa scale-ka anaga rabna inaan gaarno waa ilaa 30% jaamacadaha iyo iskuulada waddanka inaan gaarno ilaa iyo 50 organization inaan gaarnaan rabnaa sidoo kale waxaa rabaa inaan ka hadlo benefits-ka u leenahay society-ga waxaa kow ka mid ah security inaan kor u qaadno Soomaaliya secure ma aha save time inaan u save gareyno cost inaan u save gareyno midda kale muhiim ah inaan sameyno waxaa waaye waxaa rabnaa inaan yareeno isticmaalka plastiga ID card-ka wuxuu ka mid yahay plastic isticmaalkiisa rabnaa inaan yareeno oo technology ah toos ugu guurno impact saameyn bulshada waa ku leenahay qasab waaye laakiin impactigeena ma ahan mid oo baaxadeeda aad u weyn tahay waxay saameynaysaa area aad u yar next hor u soco sustainability financial sustainability businesskeena anaga waxaa rajeynaynaa labada bilo ugu horeysa kadib inaan profit maxaan ku dhahaa net profit u dhaqaaqno expense-geena wuxuu noqon doonaa laba u kala qaadnay midka koowaad waxaa waaye recurring expense oo soo noqnoqon doono iyo expense oo one time ah markii la isku daro labadooda waa 8,995 saa anaga estimate gareynay waxaa ku jira others oo lama filaan oo laga yaabo inaysan dhicin oo $100 $200 aan qorsheyn profitka anaga aan rajeynayno content client marka haysano waxaan rajeynaynaa 10,000 inaan ka sameyno overall net profit-keena wuxuu noqon doonaa sanadka koowaad $1,305 next prototype-ka waxaa 3 phase sameynay waxaa sameynay kow in application-ka interface-kiisa aan sameyno labo scan-kii lagu qaadi lahaa inaan sameyno 3 oo shalay aan sheegay oo u kala qaadnay in haddii la rabo in si degdeg loo qaado in telefonka application lagu qaado haddii loo baahdo in maxaa ku dhahaa permanent laga dhigan la isticmaalo software kaasaa noo dhiman labadan waa sameynay prototype-kan waa idin la wadaagi karnaa next screen share application-ka waa kan marka koowaad aa soo galo wuxuu weydiin doonaa login hal mar aa ka baxo toos marka koowaad wuxuu u salaami doonaa splash screen anaga weli prototype-ka wadnaa finished project ma ahan wuxuu u salaami doonaa splash screen kadib datadii wuxuu ka doonaa database-ka si uu ku weydiiyo qofka aad tahay ardayga ama qofka wuxuu kusoo galaa ID-ga la siiyey hadda ID-gayga waa kan waxaa rabaa inaa password-kana la ii sameeyey marka login dhaho waxaa ii soo baxaya information-kaygii oo ID card-ka caadiga ku qorneed sidee qof marka oo isagana uu kusoo galaa qofka oo macnaha waxaa ka wadaa waardiyahoo kale sida uu isagana ku jeegareynayo wuxuu ku jeegareynaa hadda daa halkaas u jeedid korkaas waxaa ku yaalo waxaa generate gareysaa QR code oo specific ah marka waxaa rabaa inaa ku scan gareeyo halkan si ay idin tuso isla afkiya wuxuu leeyahay section oo ugu talagalna staffka anagoo ku kala xadidayna rangiga ID card-ka internet-ka xun maxamed hal mar screen share emulator ka sokee
abkii isagoo oo waxaa ku dhahaa prototype waa kana emulatorka ku jiro haddaa rabtaa ka bixi kaloo laaban kartaa leeyahay back waa ardaygiia soo galay oo dhahaa waxaa ii generate garaysaa QR codekii generate gara scan soo aqrin layahay markii iskaankan la saaro waxa uu kusoo laabanaa qofka sawirka hadda active-ka ahaa ardayga kusoo laabanaa waa intaas inta ugu horeysa oo security-ga ugu talagalnay hal mar gaal hor u soco prototype-ka next okay kan waxaa ugu talagalnay inaan ku dhejino albaabada meelaha permanentiga ah kan isaga wuxuu wataa QR code scanner waaye oo ku xirnaan doono monitor ardaygu wuu imaan doonaa QR codekiisu la tegi doonaa biib buu ku siin doonaa kadibna waxaa usoo bixi doona ardayga informationkiisi waa mahadsantiin aad baa mahadsan tahay waxaad sheegtay risk analysiska markii laga hadlayay daatada macaamiisha oo kale in haddii internet connectivity-ga uu xumaado daatada macaamiisha loo geynayo markaasoo kale macaamiisha daatada loo geynayo maadaama logistics iyo financial kharashina ka baxayo oo tegaysaan oo hard drive isu geynaysaan ma lacag baa charge garaynaysaan waxaa ayaga hadda qorshaha nooguma jirto inaan hadda lacag ku charge gareyno maadaama responsibility-geena tahay inaan daatada annaga keep gareyno waxaa u sameynaya taasna waxaa waaye likelihoodka ay dhici karto probability-gaas inuu asbuuc maqnaado internetka waa very low waa riski la manage gareyn karo annaga aan manage gareyn karno customerkeena relationkiisa aan ku wanaajin karno okay waa mahadsantahay su-aasheeda ugu dambeysa waxaa weeye financial sustainability marka laga hadlayo kharash intee la eg baa sanadkii idinku baxaya 8,000 miyay ahayd 8,900 waxaa ku jira 4,000 oo noqon doonto wax recurring ah iyo semi recurring wax oo tusaalahan kirada shaqaalaha lacagtooda iyo internetka waxaa nooga baxaya wax recurring ah semi recurring waxaa ka mid ah marketing oo kale wax aan rabno anaga inaa go-aankeena aan ku celcelinayn anaga iyo wax furniture-ka xafiiska aan dhigan lahayn iyo waxaas oo ah marka la isku wada daro markaa 8,000 iyo xoogaa aad baa mahadsantahay marka profitka sanadka waad la generate garanayo 1,305 baa ku sheegtay see ku badin ka dhaca maadaama $1,000 ay yar tahay shirkaduna shirkad technology ay tahay waxaa wax badan soo saarto waxaa ku badin karnaa in time aan siino marketingkeena anaga hadda waxaa focus waxaa sameynay forecasting aan sameyno waxaa waaye 50 customers 50 oo institution waxaa isugu jiro maxaa ku dhahaa government organization NGO school isugu jiro marka waxaan rabnaa 50gaas waxaan rabnaa sanada koowaad inaan gaarno waxaan rabnaa inaa bishii ugu yaraan 15 customer inaan u tagno iyo marketingkii online-ka aan sameynay intii inoo soo generate gareeyeen inaan aragno waxaan rabnaa inaa ilaa 15 xarun aan booqano bishii annagoo caadi u tagayno oo potential customerskeena markaas haddaa kor u qaadno clientigana waxaa kor u qaadaynaa revenue-geena magacaygu waa Abdirxiin Faarax Cumar waxaan ka mid yahay asaasta shirkadda Row waxay qabataa qashin aruurinta nooca qashinka haraadiga cuntada taasoo u bedelno nafaqo lagu bacrimiyo beeraha shirkadayda waa shirkad horumarinta deegaanka iyo nafaqada beeraha soo saarto taasoo u rajeynayo guul mustaqbalka soo socda 5 sano soo socota magacaygu waa Abdirxiin Faarax Cumar waxaan ka socdaa shirkadda Row waa shirkad ka shaqeysa qashin aruurinta muqaayadaha taasoo u bedesho nafaqada beeraha slaadka xigo teamkan waxay ka kooban yihiin kuwana anagoo CEO iyo Safi oo maxalay head of production iyadoo ka baratay cilmiga beeraha iyadoo wali 7 sano u dambeysay marayso anagoo cilmiga beeraha bartay 2 sano shaqadan ku jiray Siam oo environmental iyo culture isku jirto salaadka xigo marketing sales aan qaabistay anagoo CEO waxaa ka shaqadeedu waxay tahay
work managerka oo goobta shaqada inaan ka shaqeeyo iyo financial headka waxaan kusoo xigo Safiya oo red production of product development noocyada dawladda product idoo sameyso waxaa kale product quality idoo noo controlsho markii la soo saaro product testing idoo noo sameyso sidoo kale siham ona marketing saleska oo customer inta loo xiriirsan iyo saleska inta loo xiriirsan inta dhan slide-ka xigo riskiga ugu badan aan saddexan aan kusoo kabnay ilaan horta waxa ugu muhiimsan space-ka aniga shirkad yaraan ahay hadda bilawnay space-ka waxa ku bilawnay 15-20 dhul riskiga soo gaari karo waxaa waaye qashinkan soo aruurin oo kale inay meesha naga buuxsamaan oo kale marka waxaa saameyn dhici karta oo kale inaan customer ku dhawno qashinka meelaha geyno oo kale inaan iska dhaafno ama naqata misalay inaan customer ka wayno dhici karto marka response-ka u sameynayna waxaa kamid ah inaan waxa leeyahay boss dhul inaan si dheereysano oo si weyneysano ama inaan waxa leeyahay landfillska meelaha qashinka bulacada dawladda la hadlan oo kale bulacada dhinaca kale aniga nolol banayo oo inaan ku shubno si qashinka kale ee saameyn isku geyn labadaba riskiga ku xiga waxaa waaye customerka oo muqdisho oo kale inta u badan oo cilmiga beelaha barteen waxaan way fahansan yihiin organiga tan filishka dadka tuuladooyinka kuloon iyo waxaas inay naga gataan oo kale inay dhibka dhici karto taasoo iyagoo fahansaneen dadki waxay arkaan oo kale chemical iyagoo isticmaala marka taas la in dib u socon marka response ka bixin waxaa waaye inaan waxa leeyahay aan awareness ku sameyno aan tijaabooyin ugu sameyno iyagoo beertooda joogo kan kale ku xiga waxaa waaye marketing way listen anigoo marketing way oo aniga takhasus marketing way makliini marka waxaan isticmaali doonaa agency marketingka anigoo response ku leeyahay riskigiisa mudarinta slide-ka xigo local community oo shaqaaleysiinta maxaa leeyahay dadka oo shaqa oo xirfad lahayn iyagoo qashinka noo soo aruurinayo dadka qashinka meelaha kale oo aniga ka sii noocyo kala duwan taasoo fee ku siinayno qashinka inoo keenan cabirno inta qiimeyn ku siinayno qashinka governments kale taxka aniga sanad kasta bixino helping aniga ka caawin inay deegaanka qashinka ka aruuriyaan oo kale wax kala shaqeyno employability waxaan isxilmanaa dad skills lahayn ilaa waxaan waxaa waaye shaqo oo u tilmaamaysi waxaas waaye marka inaan kala qayb qaadano iyagoo dadkaas oo yar inay shaqo helaan social advice-ka avoid problems oo dhibaatooyinka inaan ka xalino oo deegaanka ka jiro qashinka meelaha lagu sudayno iyo community awareness oo u sameynayno community deegaanka degmo kasta inaan u sameyno social culture our community against them horta waxaa kasoo jeedaa diinteena waxaa kasoo jeedaa culture-keena iyo diinteena waxaa kasoo jeedaa inaan qashinka meelaha lagu daadiyo oo kale scaleska aan gaarin karno waxaa waaye farmerskana haddaan maanta u sameyno wacyigelin mise xale compaskan waxaan aasiino inay maxaa leeyahay ka caawinayso asana qof kale uu sii sheego scaleska aan gaari karno awareness iyagoo degmo anaga u sameynayno inay naga fahmaan qashinka aruurintiisa end use kale iyo asoo heli karo maxaa leeyahay qofka markii productkan beeraleyda markuu isticmaalo inay product soo saari karto oo cunto fresh la soo saari karo qofka end use consumerka inuu cunto fiican nafaqo heli doono social impact ku leenahay production kana ka qayb qaadana beeraleyda iyo deegaanka nadiifinta social benefit kana ka increase of family qofka beeraleyda sunta marka ka caawino sunta muddo yar meesha uu jiro ka bacdi way ka baxay anagoo marka compost organic ana la isticmaalo oo muddo yar oo ku isticmaalo doono ilaa muddo xad carrada ugu dhex jirto nafaqadiisa slide-ka xigo financial stability waa kana anigoo ka sameynaa qashin aruurinta 2000 ka sameyno oo providing service-ka manyuurka ka sameyno 400 bish sanadkii ka sameyno inuu kun gaarayso compost-ka noo gaarayso 2000 ilaa internetkaas iyo cocobeat-ka waxaa leeyahay 5,000 gaarayso marka dil isku dar waxay imaanaysaa kulligooda inay maxaa leeyahay 10,000 sanadkii aruurino 10,000 oo expense-ka noo 6,000 slide-ka xigo prototype kana waa kana prototype wada xagga yeelan oo in soo dhiibina qaabkan in keenan prototype waa kana waxay kamid yihiin caradan inay u fiican tahay maxaa leeyahay moisture-ka inay u fiican tahay oo biyo badan u haynayso iyo inay u hayso maxaa leeyahay nafaqada inay u hayso carada kamid tahay laba nooc aan haynaa midka waxaa waaye qumbaha qolofkiisa aan ka sameynay darabtin gloves mid kalena qashinka ka sameynaa kaasa gloves aan wadnaa hadda ku isticmaalaysiin tijaabinaysiin midkan kalena u soo qaban mar Artemis.
kaas waxa waaye qashinka ka sameeyno oo qashinka cuntooyinka harayga ka sameeyno culaysna way culays taas ma markii oo biyahana oo celinaa wax badan nafaqadana oo celinaa qumbihi baa kan qolofkiisa ashiidna waay asi badan waxa ka caawiyaa germination miraha yaryarka inay oo carada marka lagu beero kale inay maxaa lahayd dhulka laga soo bixiyo marka kan waxa loo isticmaalaa trees loo isticmaalaa kaasa marka lagu beero si uu soo baxdo dhulka dad la geliyo marka seedka in lagu hareeyaan kana marka beerta lagu shubaa waxa loo isticmaalaa taa biyo lagu qasaa sunta camal lagu buufiyaa kan noocan seedka bilowga germination ka horta waa ujeedin waxa ka muuqata wax cadaan ka muuqda wax cadaanka waxa waaye ukumankii waaye ukumankii iyo qumbaha iyo mooska loofkii wax dhan waaye marka taawatiin gacmaha xataa wasaq ma helayso soo ka haraa khafiifna waaye waqti intee la eg bay aad ku diyaarin kartaan tan marka qashin ay tahay processingka intee beri qaadanaysaa maalmood processkii ugu badan waxay qaadanaysaa 6 bil 3 bil qaadanaysaa laakiin aniga waxaan ku sameynaa 2 bil 2 bil aan waxaan ku sameynaa waa shiidnaa iyagoo yaryar ka dhignaa yaryareyska maxay naga caawinaysaa inay bahalada ku jira inay cawnaan si dhaqsi leh ku sameeyaan oo cuntooyinka haraadig ma jiraan mashiino koobi kara timekaas oo yarayn kara haddaad research samaysaa waa shiidnaa ku dhawaaba aniga marka waa tunnaa mashiin ma haysano laakiin waxaan u isticmaalaa waxla oo mindi mindiyaal oo isku xiran oo makiin camal asaas u jijibnaa bas hal mar kabacdi weelka ku shubnaa weelka aadana ku sameynaa processki aad iyo aad ma shaqo fiican baa haysaan oo beeruhu u baahan yihiin Soomaaliyeed si loo gaaro food security laakiin su'aashan ku weydiinaya waxay tahay 2 bilood aad bay u badan tahay in la sugo product organiga marka ma jiraan mashiino iyo wax la isticmaali karo oo waqtiga yareyn karo week oo kale ku diyaarin kara hadda baaritaan aqoontaada ay baaritaankaaga fiiris markii kood aan sameeyno horta 18 maalin lagu soo saari karaa 18 maalin laakiin budada saaman qanayo beeraha caadiga oo isticmaalaya midaas laakiin tan oo kale waxaan u talgalnay xataa inay ku isticmaalaan inay sunta buufin xataa inay ku isticmaalaan inay biyo ku qasan sun buufin lagu isticmaalo laakiin 18 maalin lagu soo saari karaa 18 maalin lagu soo saari karaa iyadoo lagu buri oo laakiin budada way lahaanaysaa marka waxa ka koobna qashin qoyan iyo qashin qallalan baa ku jira marka qashinka qallalan waxa kamid ah kale alwaaxga xolihiisa alwaaxga wax lagu leeyahay iyo kafayga wixii ka soo hara kale in soo daro kale ay buriyaan waa mahadsantahay sidee uga hortagi kartaan maadaama la keeno oo India iyo wadamada kale laga keeno ma aragtay waxa aad gadaan oo kale raw compostigan alaabtaan oo kale sidee uga hortagi kartaan taas suuqa la keeno oo tiina organiga aad u suuq geyn kartaan chemical karta suuqa nagu jirtaa laakiin organiga marmar shirkada keensan dalbilet community ka jirta iyagana waxay kamid yihiin marka marmar ku go'aa marka aniga waa joogtay karnaa markii kuwaad 3 bilood soo saarno bilaha kale maalmo af soo saar karnaa 3 bilood wax inta leeg ba soo saari karnaa ma hadda aniga waan shaqeynaa ma waan soo saarnaa wax aad laakiin 3 bilood inta soo saartaan waqtigaas 3 bilood oo wax inta leeg bala soo saaraa 3 bilood waxa soo saarnaa waxa la 500 kiilo oo midkan oo waxa la cuntada ka sameeynaa masha Allah midka qombaha ka sameeynaa maalintii waxa soo saarnaa baadi 500 ama hasantaa kilogram makiinta shiidasab ama hasantaa Cabdiraxiim aad u mahadsan tahay goobta aad ku sameeysiin meel deegaan miyaa mise deegaanka way ka baxsan tahay deegaanka ka baxsan tahay waxaan ku sameynaa goofafka Daarusalaam gaalan ka baxsan ku sameynaa qashinka sida magaalada u dheereen oo kale deegaan ma lahan deegaan ma marka processkaas markaa sameynaysiin oo kale environmentiga dhanka hawada waxaa laga yaabaa inay gases iyo waxyaabo wasaqaysan galaan ma ka taxadaraysiin mise maxaa idinkaga qorshaysan dhankaas processkan asaaba ilaalinayo maxaa leeyahay inaan gas iyo waxas dhalo fermentation waaye inaan ka sameyno maxaa leeyahay markaa sameynayna waxaa leeyahay qashin qoyan iyo qoyaan qaleelka isku darnaa marka iyaga caraf keena markii la sameynayo oo markii xataa la sameeyo kale caraf amal oo caraf aan maya processka marka la sameynayo yani chemicals meesha ka dhashanayo hawadii galayaan ka wada macnaha meesha wasaqooysan ka wadi laakiin hawadii environmentiga يعني وحي قميرينيسي لا joogteena wax processkaas waxa ka dhalnaa ma may chemical qashinka marka gooni oo meesha oo dabeecada taga oo chemical ka dhalaa aniga chemical ka ilaanaa waxa uu ilaanaa inay hawada galaan oo waxa ku sameynaa weelimka ku sameyno ma dabooshin macnaa labada bil markii la sugayo ka wada waxa sameynaa bil amal waa daboolnaa bisha ka bacdina waxa la caadi baa caradii budada way khalasan tahay markaas qalab wax badan ma gudbinay
cabdiraxiim faaraxow waa mahadsan tahay sida wanaagsan aad soo jeedisay ma jirtaa beer kaa qaadatay oo feedback ku soo celisay ilaa hadda way jirtaa aniga jaamacadda dhigtaa experiment waxaan ku sameynaa ardayda jaamacadda dhigtoo kale badan oo ay gataan experimental ku sameeyaan tijaabooyin buug difacda xataa ku sameeyaan waxay isku barbardhiga xataa chemicalka iyo organic iyaga isku barbardhigaya inay qaataan beerana inay qaataan xataa partners waxaa kamid yahay slideka koowaad levelka aan soo sheegay oo maxaa leeyahay naga gataan markasta iyaga organic sameeyo cuntooyin organic soo saaraan marka waxaa u badan dad kaa gata greenhouse-yada muqdishoa ku koobnay ilaa hadda okay baahida magaalada ka jirta greenhouse-yada markaa ciiddiina ma ka fargarayn kartaa isleeda aniga hadda bilaabnay sanadkii koowaad hadda marownaa marka haddayna oo maalgelin fiican sii helno oo ku guuleysan oo kale inaan maxaa leeyahay sii weyneyno qashin badan soo aroorno space badan si ay sameysano wax badan sii aroorno xataa waxaan ku talagalnay oo kale beeraleyda gobolka qashinka soo saaran oo kale dalag markay soo saaraan soo gurtaan dalag waxa ku haro stemkiisa jiridiisa meesha ku harto jiridaas inaan shiidno oo iyagana meesha beertooda aan ugu sameyno ugu gadno mahadsantahay maxamed cabdiraxmaan ganacsigayga magaciisa waa hididhoor waxay qabataa waxyaabaha hidiyo dhaqanka nooc waliba ah oo si farsameysan loo sameeyo haday noqon lahayd dharkii haday noqon lahayd agabkii iyo inay dib usoo celiso waxyaabihii laga tegay oo hidiyo dhaqanka ahaa waxaan rajeyn doonaa ganacsigayga inuu noqdo mid hirgalo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa idin salaame anoo magacayga ikhlaas maxamed cabdiraxmaan businesska ku tartamaya waa hididhoor store haddii aan u gudbo maxaa la lahaa qaybta xigto team profilekeen oo ugu horeeya aniga ikhlaas maxamed cabdiraxmaan oo ah hindisaha ama maamulka guud heerkayga waxbarasho waxaa waaye bachelor degree oo ka baxa jaamaca islaamiya sidoo kale waxaan bartay fashion designka hani yacquub oo ayadana sales marketing oo waxbarashadeeda ah bachelor degree jaamacad zamzam business administration sidoo kale cabdiwiil maxamed oo asigana bartay designer bachelor degree muqdisho university interior design raxmo faarax ayadana oo xirfadley ah waxbarasho fursad umaysan helin laakiin waxaa waaye qof experience ah oo xirfadle buuxo waaye sidoo kalena waxaa waaye team leaderka xirfadleyda waaye haddii aan ka gudub qaybtaan waa inta hadda aa sheegay soco qaybta xigto risk analysiska waa tana number 1 waxaa waaye wadooyinka oo xirmi karo wadooyinka inay xirmaan yacni waxaa waaye wax aada u yar waxa lagu xali karna waxaa waaye yacni wax oo anaga aan qiyaasi karno maaha sidoo kale ganacsigeena keliya maaha in albaabo loo furo wuxuu leeyahay online maxaa la ahaa qofkii u dhowan markaaseeto uu imaan karo qaybta labaad waxaa waaye qiimaha oo ayadana 50% ah iyadana waxaa sameyn karnaa in aan qiimeyn sameyno tusaale ahaan haddii oo meel fog ama tabeelahoo kaleet haddii aan ka dhigno dukaankeena dadka qaarna ma awoodi karaan dadka qaarna way awoodi karaan marka ayadana waxay ku xiran tahay inaan qiimeyno horta kow meesha ganacsi oo ku sameynayno numberka 3 waxaa waaye fahamka dadka way fahansan yihiin kaliya waxay u baahan yihiin marketing ayadana waxaa 50% tagista oo shaqaalaha uu naga tago ayadana waxaa waaye wax aada u yar shaqaalaha markuu naga tagana waxaa ku xalin karnaa in aan shaqaalo kale tababarno haddii aan ka gudub soco sustainability-ga waa kana waxaa ugu horeeya dhanka dowladda number 1 waxaa waaye fududeynta yacni barnaamijka anaga aan wadano sidoo kale shatiga shaqaalaha oo asigana yacni u baahan tababar iyo mushaarka iyo ka warqab sidoo kale social impactiga waxaa waaye sar u qaadidda dhaqanka in la xoojiyo social value-ga waxaa waaye ayadana in la aqbali karo kow sidoo kale midda labaadna waxaa waaye bulsho badan inaan gaarsiin karno sidee ku gaarsiinaynaa marketing inaan sameyno kow goob kaleeta inaan furno haddii ahaan lahayd gobolada qaab online ahaan inaan u sameynayno xaysiin camal oo qaab online aan u sameynayno
macmiilkeen maxaa ku qancin karnaa raaligelin iyo qiimo macquul ah sidoo kale iyo wax tayo leh ka soco financiga ayadan waxaa waa lambar 1 horta inaad qorsheysid yacni qorshe lacageed inaad samaystid midda labaad saving inaad samaystid oo keed ah oo inaad wax meel dhigatid in la kontaroolo lacagaha kaa baxaayo iyo kuwa soo galayo sidoo kaleeto inaad ka fogaatid deynta haddii ahaan lahayd kuwa lagaa qaadanayo iyo kuwa adiga qaadanaysidba ka gudub qaybtan haddaa u gudbo inta waxaa igu xardhan waxyaabaha oo soo qaadi waaya inta kaleetana waa wada oo ay ka mid tahay xeerada ama finjaanka saa u taqaanin finjaanka waa bahashaaneeta oo dharka aroosada wadato oo aroosyadana la geeyo sida gabadha camal waa loogu labisaa heerarka loo maraayo yani way kala duwan yihiin koow xariga in la furo midda labaad la feedo kadib waxaan oo la jaraayo waxaa waaye timirtii qaabkii loo dhisay in la jaro kadib markii la jarana waxaa gudaheeda ku jiro marna oodkaca la geliyaa marna wax macaan ahaa la geliyaa iyo dabqaadkii iyo hidiyo dhaqankii iyo maxaa la dhahaa saabkii waay oo la gelinayo haanta caanaha markii la lulaayo la gelinayo waay intan waxaa iigu jiro horta koo dhiishaaneeto tan caanama lagu shubta yacni waxaa waaye qurxin tusaale ahaan gabdhaha aroosyada ama markaa dharka hidiyi dhaqanka u samaysid inaad dharkooda ku maajgareysid haddana waxaa kusoo maajgareeyay bahashaan aawato maadaama ay gaduud tahay ayadan waxaa ka maqnay kuushaan aawato ayadane hidiyi dhaqankay ka mid tahay dharka hidiyi dhaqankaan lagu xirtaa sidoo kale waxaa wataa bahashaaneeto haddaa aragteen tooleedka sida u taqaaniin ama armaajada muraayada loo qolka jiifka ah badanaa hadda waxaa saarnaa ayadoo bir ah ama ayadoo dhale ah tan laakiin waxaa ka sameynay cawdi iyo maxaa la lahaa wax kastana waa saaran kartaa cadarka hadduu ahaan lahaa mana kaa mirireyso mana kaa jabeyso sidoo kale waxaa wataa bahalladaaneeto waxay leeyihiin dhowr design way kala weyn yihiin wayna kala yar yihiin laakiin hadda ani labadaanaan ka wataa waxaa sameyn kartaa miiska qadada camal markaa cuntada diyaarinaysid hadda waxaa saarnaa marooyinaa jiro oo la dhigto oo saxanka la dul saaro saxankana waa dul saaran kartaa sidoo kaleeto ayadoo design kala waaweyn ahoo waxaa jiro oo maqaayadaha iyo hoteeladana derbiyada lagu xardho oo saas kala waaweyn leh oo ayadana ka sameysan cawdi wax su-aal qabtiin hidadhowr store waa ganacsi kor u qaadayo wax soo saarka dalka sidoo kale yareynayo shaqo la-aanta isla markaasina horumarinaya dhaqankeena quruxda badan haddaa ognahay soomaalidaan dhaqan qurux badan aan leenahay laakiin maku baraarugsanin financial sustainability-ga hal mar noogu celi financial sustainability-ga aytan sooma ha lacag ahaan maxaa kugu baxaysa sanadkii lacag in lagu qoro halkaa number inaan ka helay ahayd maxaa sanadkii kugu baxaysa lacag ahaan lacag ahaan sanadkii waxa dhan celcelis marka kirada iyo waxa dhan isku dardaro intee noqonayaan taas shalaa ka hadla maanta yaa ma xasuutaa ma laakiin waa ii qorantay okay kharash ahaan maxaa faa'iido ahaan maxaa filanaysaa sanadka dhan celcelis faa'iido waxaa filanaya adii ilaa 5,000 okay mahadsantahay hal su-aalaan ku dari lahaa risk analysiska marka la joogo riskiga waxyaabaha xustay ma ku jiri karaan in ayada laftigeedu cawdaas iyo alaabtaas waxa laga sameynayo la waayi karo oo meelo laga soo gato iyo availability-gooda aada ugu yaryahay waa tala ahaan in ayada lagu daro risk analysiska waa laga maarmaana maadaama dharka meelaha dhaqanka iyo waxaan ay aada magaalada ugu yaryihiin ayada laftigeeda riskiga waa ka mid noqon kartaa in ayagaba la waayaba cawdaan qof tole yaqaana ama ayada laftigeeda meesha laga keeni jira sax si fiican way soo gelaysaa ayadana waxaa waa adin yani wax aada u yar waay oo zaa'id u yar boqolkiiba 7 camal sida daya aa sheegay xalkeedana wuxuu noqonaa marka horeba inaa yani wax fiican aad dhigto midda labaad meelaha aa ka keensanayo inaa la socod xogteeda magacaygu waa ismaan suleymaan aadan loo yaqaano sahal cirro dhigta jaamacadda SIU kana barta culumta beeraha iyo deegaanka
shirkaddeena magaceedu waxa weeye ama kambanigeena ama kambanigeygaba cusub animal fodder oo soo saaro calafka xoolaha mustaqbalka waxaan rajayn doonaa inaan noqono kambaniga ugu fiicnaa ee soo saaro calafka xoolaha haddii ilaa yiraahdo magacay waa Ismaan Suleymaan shirkaddeena magaceedu waxa weeye cusub animal fodder sii soco team profile waxa weeye aniga oo gudoomiyaha ama managerkii ah waxaan bartaa kuliyadda beeraha jaamacadana waa SIU experience waxa weeye 2 years waaye Abdullahi Maxamed Shide waa financial headkeena jaamacadda Simson waa isagana agriculture wuxuu ii sheegay experienceski waxa waaye isagana waa waka Simson waxa waaye secretary undergraduate waaye agricultural science Jazeera University Maxamed Abdulqaadir isaguna waxa weeye waa veterinary oo jaamacadda ummadda isaguna waa waxa weeye shaqo marketkiis maxay ay tukana yiraahday siiso 1 year waa macna experience-kiisa team profile-ka waa aniga gudoomiye ah Samsung secretary ah Maxamed oo marketing ah financial kiidka Abdullahi Maxamed Shida high risk ama risk analysis waxa waaye boqolkiiba markaan qiimeynay waxa major risk galleeyda oo mar qaar la waayo oo xilliga abaarta oo kale markay dhacdo saameyntu waa iska dhaadhaxaad sida loogu hortagi karo waxa waaye inta hadda galleey weyn waa barley ama misaga isticmaali karna maxay ahayd oo sheeg wadooyinka boqolkiiba way iska xirmaan magaalada waa ogtiin gobolkan ka shaqeynaa waa Banaadir waa saameyntu waa iska dhaadhaxaad laftirkeeda sida loogu hortagi karno waa wadooyin badan oo maxay ahayd magaalada banaankeeda wax geyn karo in magaalada gadanka soo marin karno saameyntu waxa waaye biyaha oo go'an mararka qaar tan aad noo saameysay marka saameynta aad u daran tahay sida loogu hortagi karo waxa waaye inaan xamaan badan aan sameysano biyo ku keedsano sii soo sustainability community waxa waaye local community waxa waaye baraarujin oo qiimeynta calafka xoolaha inaan sameeyno social impact waxa noqonayaa il muhiim ah oo wax soo saarka xoolaha oo ku tiirsan yahay government waxa noqonayaa anshuur iyo ka qayb qaadashada dhaqaalaha dalka police waxa noqonayaa hal qof oo waardiino ah inta kale anaga dhan shaqaalaha ka midnahay waa sababta experience waxaan agricultural iyo veterinary xoolaha iyo beeraha isku jiro social view waxa noqon doonaa daraasayn nooca calafka xoolaha iyo ay u baahan yihiin social cultural waxa noqonayaa dhiirigelin iyo dhaqashada inaan motivation u sameeyno social benefits waxa noqonayaa in caanaha iyo hilibka raqiis ay noqdaan quraan ama maxay tahay markay wax cunaan neef oo caana leh hilibkiisana waa dareemi kartaa inda use waxaan calaf xoolaha oo qiimo si soo financial sustainability waxa waaye shirkaddan Som Livestock la xoolaha dhaqataa sanadkii bishii maalintii waxa naga gadanaysa ama kala soo heshiinay 200 kilogram booni aan soo saarayno haddii lagu dhufto 25 waxa waaye maalintii $50 bishii waa $1500 expensive $10 oo transportation ah per month waxay noqonaysaa 300 28 kilo aan soo saarayna abuurkii waa u jeedaan haddii lagu dhufto 28 waxay noqonaysaa 840 kilogram sii soo adiga faa'iido waxaan noo haraysa 310 prototype-kan waxa kana waxaan soo saarnay waa calafkii xoolaha oo hydroponic ah oo bilaacara sii soo waliba waxaan raaci doonaa qaabkan soo saarnay wax sii soo kana soo noqona sii soo day 1 waa kasa waa beernay bilaacara waa u jeedaan sii soo day 2 iyo day 3 isugu jiro waaye sii soo day 4 sii soo day 5 sii soo day 6 kii sii soo 7 kii sii soo hal mar 8 kii waa kan harvesting ku sameeyay xoolaha waa la siin karaa hal mar soo laabo marka waxaa tagtaa sii soo shirkaddeena waxa weeye waa shirkad si gaar ah loo leeyahay waxayna ka shaqeyn doontaa calafka xoolaha waliba dalabkiisa oo dhimayna badan yahay supply-giisa uu yar yahay suuqan waxa uu soo biiri doona calafka xoolaha oo loo yaqaan hydroponic fodder kaas oo biyo bis wax lagu soo saaro bilaacraha video noo geyn mar videoga shirkaddan magaceedu waxa waaye waa Cusub Animal Fodder processka amari doono waa kana ayuu beeran oo first day-gii ah misagadii iyo galleydii waaye oo jeedaan stage 2 iyo 3 isugu jiro waa kaas oo yar way soo saareen
laakiin weli germinationka sidii la rabay koritaanka sidii la rabay ma aha waa iska medium stage 4 marka stage 4 markaan kule maalinkii saddexaad ma ahan waxaan u qaybinay maalin koowaad labaad saddexaad aan u kala qaybinay marna waxa weeye wixii aan beernay maalin koowaad mar labaad ayuu meel dhexaad marayaan mar sidaa ayuu harvesting ku sameynay kadibna xoolihii ayuu quudanayaan oo taas proof that noo ah sababtoo ah maalinkii waxaa la dhahay marka soo bandhigaysaa profiteka wax cad hala keenaa la dhahay annagu dee maanta haddaan wax isla xalay haddaan wax beerno maanta cus nooma imaanayo sababtoo ah isbuuc hor ina loola soo sheegay ahayd laakiin khibraddeedana waa leenahay waa soo saarnay dokumentiyadan aan ka haynay bilow ilaa dhammaad haddii video dhammaystiran way helaynaa ilaa 5 daqiiqo soconayo dee cusa mar walba waxay u taagan tahay sida adinka caani iyo hilib iyo subag u heli leydeen abaartana dee haddii ilaa yidhaahdo waxaan rajaynaynaa waxyaaba badan dalka inaan ugu qabanno intii tabartayna ah cusmaan aad u mahadsan tahay waxaa raba inaan ku weydiiyo haddii ganacsigaaga mid la mid ah magaalada uu kusoo biiro sidee ula tartami lahayd waa su-aal fiican ustaadi mil maqlaya horta waxaan ku tartamayna waa calafkii xoolaha kulley hadda magaalada ilaa hadda aniga ma arkin meel oo hydroponic fodder lagu soo saaro oo shirkad gooni ah oo calafka xoolaha soo saarto waxaa jira calaf xoolaha oo magaalada banaankeeda lagu may isla kaagay ka daba keenayna okay example waa isla calafkii xoolaha oo hydroponic sameyn soo ma annaga horta okay annaga waxaan rajayn hadda bilow annahay calafka xoolaha hydroponic kaliya kuma koobnin waxaa jira silage fodder oo straw mulaza waxyaaba badan jira inaan sameynaan rabnaa weliba khibradooda aan leenahay sababtoo dad bartay xoolaha iyo beeraha nahay sida loo sameeyo marka waxaan rajaynaa hadba sidii aan uga faa'iidaysan lahayn ama maxay ahayd markuu qofku yimaado waxaan sameynaynaa qiimo dhimis oo kale waa sameyn karaa sababta suuqa kugu horeynay sida dadku usoo jiidan lahayn aniga haddii cooska halkii coos aan sameynay sababta aniga kaga horeynay saaxada suuqa haddii anaga kii aan soo saarnay isaga dib ku soo saaro mid kale cusub aan soo saarayna haddana mar walba si aan saameyn ugu lahaano social ama media ama community-ga cusman waa mahadsan tahay caag ama jirkaan la kala gooyay baa hadda ku samayseen exactly waxaa ku shubteen waa galley iyo masago si fiican iyagana waa naqana madaal baa loo cabiraa marka halkaas imise madaal oo kale ku shubaysaan cawska jirkaanka soo saaraya su-aal fiican waa ustaadi horta caagad waxaan u isticmaalaynay badanaa waxaa loogu talagelay saxan xitaa waa lagu beeri karaa cawskan laakiin waxaa jira dunidu waad horumartay saa aragteenba annaga soomaaliyana xooga yar bahasha dib noo dhigtay waxaa jira waxyaaba la isticmaalo strays laayo caagada ah oo loogu talagalay caagadaas marka waddanka ma yaalaan suuqa bakaara meel kasta aan ka raadayna waa ka weynay marka dibadda waa laga helaa marka caagadaas haddii la waayo micnaheeda ma ahan cooska in laga joogsado marka waxaa la isticmaali karaa fikri sababtoo maskaxda way shaqaynaysaa marka caagadiyaa kala jaaranay halkii caag waxaa u kala dhignay 2 xabo halkii kiilo ama waxaan ka shubaynaa 2 kiilo oo kale caagadii ama kiilo iyo bar 2 kiilo markaad ku shubto imsa kaaga soo baxaya tiri waxaa jirta horta caagada weynta marka isticmaalan example caagada waaweyn stress layer jira ma isticmaali karaa in kan laga weynayo caag weyn la isticmaalo weli waxaa jirta halkii kiilo oo barley ah waxaa ka filanaya 7 kiilo halkii kiilo barley ah waxay dhalaysaa 7 kiilo marka caag weyn lagu shubo tan sababtoo caagadan size-keeda aad u yar 1 kiilo oo kale oo caadi ah laakiin ciriiri ku noqonaysa laftarkeeda sababtoo waxaad arkaysaa galleyda oo geesaha laftarkeeda oo si fiican u soo dhalan sababtoo ah meesha ciriiri noqotay ma soo wada bixi karto sababtoo waxay rabtaa kan hadda imsa kiilo kaaga soo baxda 2 kiilo oo kale jirkaankan yar ama caagkan yar kan waxaa soo baxday ugu yaraan adiga 3 kiilo oo kale sababtoo space-ka yar waxyaabo badan oo soo dhalanaa jira macnaha galley badan aan soo dhalan marka 2 kiilo ku shubtay 3 kiilo waa keelaysaa sababta waxa weeye space-kii oo caagadii aan ku tashanay caagadii weyneed ma haystay galley badan ba meesha iga qasaartay hadda sababtoo space-ka yar maba soo dhalanayso sababtoo ciriiri meesha ku jira ciriiri marka la madaalkaas ama kiiloogaas inta laga soo siiyaa waxaa jirta galleyda oo kale waxa waaye 0.8 aduu 18 meelahaas waaye laakiin barleyda oo kale markay noqoto meeshaan ku weynay hadda waxaa Nairobi noo dhow ku soo helnay $1 ay dhaheen marka wax badan markaa soo qaadanaysa meesha waxaa ku jira discount
okay marka hal door haddii laga gado aniga kiiladii 0.5 aan gado 0.25 ha gado ha 25 aan gado dhibaato ma qabo sababtoo ah qabtaa 7 senti waa 3 kiilo waxaan dhibaato ku qabin ustaad 0.5 markii hal door halka kiilo laga soo siiyo oo halka kiilo 7 kiilo aan ka sii filanayo igu sii dhufo marka halka kiilo intaas okay hal kiilo 7 kiilo ka filanaysa ha waa mahadsan tahay anigu su'aal kuma weydiinayo talaan hayaa baarleyda horta heed baa la dhahaa baan u malaynayaa soo heedda ma aha geedka heedda marka meesha ugu badan oo laga helo waa Ethiopia Somalilandna waa yimaadaayo halkaasna waa laga helaa marka intii Kenya iyo logistic kaaga bixi lahayd inaad si fudud halkaa ka raadsatid baan oo Somaliland ha haddii la yiraahdo kana mid ah tartamayaasha barnaamijka hindisihiisa yaalabuur kuna tartamaysa fikradda ganacsiga oo la magac baxday H&H Beauty businesskayga wuxuu focus ka saaray gabdhaha asagoo u keenayo waxyaabaha ay u baahan yihiin haday noqoto bagska ay xiran lahayn ama beauty productska isticmaal lahayn muhiimadeedu waxaa waaye in gabdhaheena Soomaaliyeed ay ka maarmaan in banaanka ama dibadda wax looga keeno oo local ahaan waxa ugu soo saaro productiga ay design daneynayaan ayagoo waliba dooqanaya designka ay karabaan waxaan rajaynayaa in barnaamijkan ku guuleysan doono fikradeedana aan horumari doono amaasantiin saaro soo sheegnay waxaan soo sheegnay problemka then solutionka kadib waxaan soo sheegnay financial plankeena hadda waxaan ku xijinaynaa teamkeena wuxuu ka kooban yahay next okay teamkeena loo qofooda ka kooban yahay anigoo ah hani oo founderka ah iyo Nasra Abdulxaliim oo ah co-founder labadeena waxaan ahay graduate oo jaamacada dhameynay organizational structure keena shaqadaas oo qabsanayna ama si oo kala socoto next please okay ani waxaan ahay CEO shaqada ugu badan aan qabto haddii noqoto saleska haddii noqoto marketingka haddii noqoto operationka ama in wax soo saaro nasrana waxay naga saacidaa qaybta oo financega ama in wax la xisaabiyo dan plan iyo waxa sameeyno risk markii la hasgareynayo waxaa la sameeyaa identification then waxaa lagu sameeyaa assessment kadib inaan sameyno maxaa la lahaa inaan riskigaas la tacaamulo then maxaa la lahaa saameyntiisa iska xijino then waxaan inagu soo laabanayna iska fiirino meelaha riskiga nooga imaan kara waxaa ka mid ah next production keena so maadaama aniga wax soo saarno ama wax aan sameeyno waxa laga yaabaa waxyaabo qaldan inaan sameeyno ama qof wuxuu dalbaday in maahan wax kale oo sameeyno ina customer weyno way dhici kartaa ina customer weyno saameyn weyn ugu yeelanaysa waxa kooska oo kaas sameynaya ina customer weyno waxa kamid ah ina interaction keena ama iskula xiriireen inuu qaldan yahay ama customer service keena uu aad u hooseeyo waxaasna wuxuu dhici karaa very low cause waxa aaminsan in customer-ka qancin karo security waxa laga yaabaa maadaama online aan sameynayo in datadeeda aan loo sgareeyo taasna way dhici kartaa mana dhici karto cause hackers badanaa jiro dan dadka badanaa digitalka si fiican u fahansan yihiin miss order qofka inuu wax soo dalbado amaahani wax kale aadiibo way dhici kartaa idani kaasna waxaa sabayso qofka markuu wax weydiinayo kaleeto wixii uu dalbado maa in aan wax si kale u fahmo ama like isfaham weyn labadeena isfaham darin naga dhex marto low sales inaan sameyno daadatin waxaa waa natural disaster wax musiibo ilaa xaggiis ka imaada in productigeena uu khasaaro kaleeto inaan sameyno next sustainability-geena local communities waxaa wuxuu sustainable uga noqon karnaa ama interactionka naga dhexin kara waxaa waaye productigeena qeybaha ugu muhiimsan ama itemskeena ugu muhiimsan inaan dadka localka ka iibsano then productionkeena ama based in muqdisho inaan noqono social culture-keena waxaa inaan yareyn rabnaa in wax noola soo dhoofiyo si aan production u sameyno governmentiga maybe inaan partnership aan noqono ama investment ama nalagu sameeyo ama inaan waxyaabaha legalka aan sameyno anaga bixino taxeska ama registrationka waxyaabahaas camal ah value-geena waxaa waaye inaan product quality la gabdhaha siino ama dumarka oo dhan ay ku qanacsan yihiin muhiimadeena waxaa waaye inaan Somali brand aan create gareyno end user-keena qof muhiimadiisa waxaa waaye inuu helo customized product oo unique ah uu qof ku qanacsan yahay
benefitkeena waxaa waaye oo socialka inaga faa'iidayaan inuu qofka easy to get inuu yahay, time saving inuu leeyahay, high quality product inuu heli karo. Skillkeena waxaa waaye inaan sameyno customer badan inaan gaarno, sales badan u sameyno, inaan states oo Soomaali ka tirsan inaan gaarno. Next, financial sustainability waxaan dhihi karnaa marka expensigeena uu ka badan yahay, expensigeena uu ka yar yahay saleska aan sameynayno oo profit aan gaari karno, then maybe waa maxaa la financigeena sustainable noqon karna. Saa hadda arkaysiin expensigeena iyo saleska saleska aan sameynayno, then profitkeena iyo revenuegeena markaas oo revenue fiican sameyno markaas financial sustainable noqon karna. And this is our product. That's one pack why, then the lip gloss why. I can show you. That's all. Amazing. I guess ما كان روش الحياة واحد يكون كوريري material كأدو بدون هي. أين أنت سيارة؟ This is my product. Oops. gabdhaha ku waxaan dhib kula socnaa idinka ma garanaysin. This is my bag. Then dhib kula socnaa. Yoo qalhaan midway ana sameeyay karan. Sawirkan bala ku sameeyay. No, sketching hadda product waxa uu dalbanaya ama vendors ka wareedina waxa wayna mashiinka helaan aan sameyn karo. Kan la keenay sameeyay. Yes, betul karan. Yes, أنا سميكم. This one shimmer ليه كان لكن لي شوي. Then oil أكو جرت كان oil كوبادن كان نبيس كوبادن. واسمع على كرت براين كرت. wax kale oo muhiimsan waxa way inay organize tahay soo waxyaabo qaar kood ma ugu dhamayaan amsan kartaa shimara ku taraysa shimara ku taray birqbirq ya zaatan li shaway beedo ila isticmaali kartaa ma sintin shukran هني وما سنتهاي واحد دوار ببعض مسويهان ميدك عم بلقط طلع. No machine حرقان كاستعمال. حرقان بقى أذان طلع. Yes. هني لب جلوس هذا محيك جد وانت لب جلوس كلا أو مقالة تعالو. waxyaaba uu doonaa waxaa ka mid ah because anigu productka isticmaalay waa aqaana then waxyaaba oo qofka oo maxaa la lib faa'iido u leh na garan karaa so midaas oo kale geedka farac caar ku jirto saliidaha ku badan so qofka waxay ka difaacaysaa oo fortis dilaacdo kaleeto moisturizer fiican oo noqonaysa so faa'iidada u leedahay aqaana then qofku ay dhiigid garan karaa yani waxaas oo isticmaali kartaa dhig karaa بسم الله الرحمن الرحيم رمضان كريم قلب وناكسن يعني دردارن كيني أها مادام أتين ضد بسنس أيديا وتو ربما مساحة بسنس كأني كسو بيران ولي بدلنا يراه وأرين قروح بدن ولا فرحه وأود أقول لستين قبي أهان هذا سو قرتين ستيج كان تيم كصوب حقيقي وأن صوب حنبا وحين الله هاي هنقطة عمل كأهيسين مد إتقانه أولا إن إذا كان قطهرت مد يعني إلهي لو ديبي أو dadku kalsoon Allah noqda the second thinking ha idin ka noqoto wax yani idin ka go'an tahay aysan noqonin yani caatifa iyo wax maalmo kaliya socdo insha Allah guul ay idin wada rajaynayaa guuleysta insha Allah salaamu calaykum aada u mahadsantihiin waxa aad ugu faraxsanahay 6 qofood in aa wareega ugu dambeeyay oo finalka ay imaateen run ahaantii taasna waxay idin tahay guul adikoo dhalinyaro yaryar ah asaagiina in aad ka soo dhaxbaxdaan oo fikir wadankiina iyo maxaa la dhahaa nafsadiina iyo familkiina wax u taraay aad la timaadeen
waxaa idinkula dardaarmayaa mar walbo in aad ka fikirtiin sidaa waddankiini naftiini iyo reerihiina aad ku horumarin laheedeen howl walba oo bilowdaanna in aad joogteysaan joogteyntaasna waxaa ka dhalan doona insha allah result wanaagsan waxaa idiin rajeynayaa guul wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullah. Soonqaad wanaagsan soo dhawaada saaxiibayaal. Waxaan horta dardaarmayaa alla ka cabsi iyo inaan mar kasta ilaahay xasuusanno. aad baan idinkaga mahadcelinayaa kulligiina guul baan idin rajaynayaa sida aad la wada socotaanna waataan mar horena sheegay haddana uu sheegay Utanga crowdfunding oo hindisa baan qorshaha iyagu yahay kulligiin lagu maalgelinayo not only xataa 6 kaliya 12 iyo 30 cidii potential oo danaynaysa ay intay campaignkeeda furato halkaas crowdfunding oo waliba Astaan TV iyo meelo badan aan ku baahinay lagaga wada qayb qaadan karo marka taa laftigeedu guul baan u arkaa in businesskii ku diyaarsan yahay crowdfunding-kii aragtay guulaysatay waa mahadsantahay. bismillaahir rahmaanir rahiim ramadaan mubaarak waxaan aad ugu faraxsanahay 6 shirkadood ee isugu soo haray oo ka soo baxay wareegii 30 qof ama 30 shirkadood iyo wareegii 12 shirkadood sida ay sheegayso maxay dhahdaaye waa in haddana aad barnaamijku 3 qof baa loo baahan yahay ama 3 shirkadood in bay abaalmarintu khusaysaa marka 6diinana 3 baa haddii la idmo la soo reebi doonaa 3da ku guuleysatana waxaan u hambalyeyn doonaa kelmadoodana waa siin doonaa insha Allah taala intaas kadib waxaa ku tartamay Korea platform oo helay 85 Bayteso oo helay 70.75 Raw Combust oo helay 70.5 Hidadhowr oo helay 71 Cusub oo helay 72.5 H&H oo helay 73 halkaas marka 3 shirkadood oo kaalinta koowaad iyo labaad iyo saddexaad soo kala baxay waxay noqonayaan Korea oo ku soo baxay 85 H&H oo kaalinta labaad ah hani oo ku soo baxay 73 iyo Cusub Animal oo ah 72.5 oo ku soo baxay kaalinta saddexaad ama 60